xarun lagu kobciyo laguna xanaaneeyo dhirta oo ka dhisan magaalada Garowe ayaa isku dayaysa inay daboosho baahida loo qabo noocyada dhirta. xaruntan oo dad qurba jooga ay sanad ka hor ka hirgeliyeen halkaasi ayaa sidoo kale lagu kobciyaa dhirta ku dhaweyd in ay nabad guurto. warbixintan waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjaab. xaruntan kobcinta dhirta oo lagu magacaabo Dalsan ayaa ah nooceeda tii ugu horeysay ee laga hirgeliyay Garowe, waxaana ay abuurtay boqolaal geed oo isugu jira noocyo kala duwan sida uu VOA u sheegay Xuseen Xaji Yuusuf oo ah qurba jooga sameeya xarunta. waxa taala dhir aad u fara badan oo noocyo badan ah. dhirtaas oo ah geed hareed, dhirta qudaarta, dhirta jardiinooyinka oo lagu qurxiyo, jardiinooyinka lagu qurxiyo. markii aanu hawshan bilownay ma aysan jirin meel dhireed oo ka horeysay meeshan oo ka furan muxuu ahaa Garowe oo sidaan oo kale u qaabaysan. waxaana nagu kaliftay run ahaantii furitaankeeda oo ay ahayd waa meherad banaanayd bay ahayd oo ganacsi, laakiin waxa ka sii muhiimsanayd haddana baahida loo qabay. goobta waxaan ku arkay dhir kala duwan kuwaasoo xitaa waa hore ugu dambeysay muuqaalkooda isla markaana nabaad guuray, sida uu tilmaamay Maxamed Macalin Xuseen oo muddo 30 sano ah ku hawlanaa beeridda dhirta kala duwan iyo kobcinteeda. markii ugu horeysay aasaaska horeysay waxaan ka bilownay in maaragtay deegaankeena aan dhirtii ku soo celino oon aan baadi goobno dhirtii aan wixii sir laga shubi karaan iska shubno, wixii katar iyo lagu jari karaan aan ka waxayno. waxaa ka mid ah cadaygii, galoolkii, bilcilkii, meegaagii, gomashkii iyo dhafaruurtii iyo yicibtiina waa ku jirtaa. dhammaan mir bay leeyihiin. mirtaasaan annagu aan markii hore aan ku kobcinay biyo xareed ah, kabacdina ay biyaheena weerka caadiga ay magaalada ay la qabsadeen. laakiin waan tijaabinay in anagu beeri karo maaragtay, waa ku guuleysan. xataa berde geedkan berdaha la yiraahdo baan tijaabinay. waxaanu tijaabinay muxuu ahaa daray, waa dhirta sii nabaad guuraysa wey. kadib waxaa xaruntan ay heshay dalabaad kala duwan markii ay jirtay muddo sanada oo ay soo bateen dhismooyinka, dadkana ay soo fahmeen faa'iidada dhirta. intaan ogahay ilaa Boosaaso, Qardho, Gaalkacyo, Burtille, tuulooyin badan oo wadanka ilaa Laascaano, intaasba waxa weeye mashaariic baanu ka fulinay oo muxuu ahaa dad barayfada aan u fulinay iyo qaar aanu maaragtay hay'adaha dawliga laftooda la fulinay, sida hadda garoonka muxuu ahaa diyaaradaha Maxamed Abshir oo kale. hoteelada waaweyn oo kale waxay u ahayd runtii fursad aad u qaaliya sida aan u bilcinay. howlwadeenada xaruntan ayaa u sheegay VOA inay wax badan ka bedeleen dhireenta magaalada Garowe 2 sano ay ugu dambeysay si looga gudbo dhulka saxaraha ah, waxaana meelahaasi ka mid ah jaamacadaha Garowe iyo goobaha loo dalxiis tago. magacaygu waa Maxamed Askar Ismaaciil, waxaan ahay dhalinyarada qurba joogta gaar ahaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland baan ku dhashay. inta aan soo noqday waxyaalaha igu cajiibka badnaa oo aan ku arkay magaalada isbedelka ku yimi waxay ka mid ahaayeen deegaanka magaalada. markii hore aan wadanka joognay dhirta aad looma aqoon oo waa ku yaray dhirta, laakiin hadda waxa ay muuqday in ay dhirtii magaalada ku soo badatay. dariiqyadii lagu sameeyay oo ay maxaa ahaayey lagu beeray. dad badan baa jira oo aan dhirtu wax weynba ugu fadhiyin oo ama jara ama iska baneeya ama meesha beer ka dhigta ama oo aan geedka u arag inuu wax aad u weyn ku fadhiyo. Garowe waxa ay ku taala dhulka loo yaqaan Nugaasho Godan, waana dhul bannaan oo aysan ku beernayn dhir badan marka laga reebo dhir yar oo iskeed u baxday meelaha qaar, waana deegaan ay ku hareeraysan yihiin buuro. magaalada waxa weeye hareeraheedu waxay u baahan tahay waliba galbeedka magaaladu dhirayn aad u badan si magaaladu ay gabaad u hesho oo fira la'aan ay u noqoto oo ciidu aysan u kicin. cimilada la leeyahay waa isbedeshay, waxa keenay waa xaalufka dhirta. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garowe.